bulshada Somaliland meel walba ay ku sugan yihiin waxaan loo wadaagaynaa dhacdadii shabeelkii ee 15 bisha tobnaad 2022 lagu dilay tuulada Higlada oo ka tirsan degmada Salaxley gobolka Maroodijeex dhacdadaas oo ahayd dhacdo runtii ay bulshada Somaliland meel walba joogtaba ka xumaatay wasaaraddu markay aragtay shabeelka la dilay way ka howlgashay si warbixin dheeraad ah uga raadiso markaanu gaadhnay deegaanka waxaan warbixin ku helnay in shabeelkan uu ka yimid dhinaca waqooyiga Somaliland waxna una galabsan dadka deegaankuna raadkiisa ay raaceen kadibna maadaama wuxuu ku cusub raadku markay arkeen inuu shabeel yahay horena deegaanka ugu arag ay dileen runtii howlgalka waxay wasaaraddu ku soo xidhay qof ka mid ah eedeysanayaashii dadkii dilay ee ka howlgalay runtii howlgalkaas kadib waxaan xog ku helnay in shabeelka laga saaray haraguna uu yaalo dadka deegaanka kadib dadkii deegaanku waxay keeneen haragii waa halkan yaala runtii sababtu waxa weeye maadaama haragga waxa looga saarayaa in dadku ay ku qorxistaan meheradahooda ama goobaha guryahooda taas waxay dhiiri gelinaysaa in dadka reer miyiga ay doontaan xeerka ilaalinta keymaha iyo duurjoogtuna wuxuu mamnuucayaa in duurjoogta nooc kasta ay tahay la laayo bulshada Somaliland ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada la shaqeysa waxaan la wadaagaynaa duurjoogtu nooc kasta ay tahay waa khayraad aan leenahay waa bilicdeena waa quruxdeena shabeelka hareemacadka iyo libaaxo inaga dabar go'ayba runtii waxay ka mid yihiin species ka sii dabar go'aya adduunka marka haddii aynu iyaga layno wax badan aynaan garanayn baa deegaanka imanaya bulshada Somaliland meel walba ay ku sugan yihiin ba wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waxay la wadaagaysaa ay kugu wacyi gelinaysaa inaad ilaaliso duurjoogta iyo deegaankaba runtii duurjoogtu waa khayraad aynu leenahay deegaankuna waa deegaankaynu ku noolnahay waana wax isku xidhan oo kala maarmayn